السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالكنا maanta wuxuu ku daba xidhan yahay muqaaladii hore aanu kaga waramanay dhulka barakeysan ee Beytul Maqdis ama Qudus sidaad u taqaanaanba. qaybtii hore haddaanu idin xasuusino waynagii kaga soo hadalnay inay Qudus tahay dhulkii dheelminta iyo guureynta. haddaba maantana muqaalkeena waxaan kaga hadli doonaa inay tahay Qudus magaalada saddexaad ee la weyneeyo Islaamka dhexdiisa. قدس ومقالة saddexaad ee la weyneeyo Islaamka dhexdiisa. magaaladii ugu horeysay Islaamku waa Maka oo Alle ku sharfay masaajidka xaramka. magaalada labaad ee Islaamkuna waa Madiinatul Munawwara oo Alle ku sharfay masaajidka Nabiga waana ta uu ku aasan yahay Rasuulku sallallahu alayhi wasallam. magaalada saddexaad ee Islaamku waa Qudus ama Beytul Maqdis oo Alle ku sharfay masaajidka Aqsa. arintaasi waxa ay ku sugan tahay xadiis la isku raacsan yahay oo ay wariyeen Abu Hurayra iyo Abu Sa'id al-Khudri inuu Nabi sallallahu alayhi wasallam yiri looma safro saddex masaajid mooyaane masaajidka xaramka, masaajidka Aqsa iyo masaajidkayga oo masaajidka Nabiga. masaajidadu dhamaantood way ay simeeyeen xagga abaalmarinta cidda ku tukanaysa. waxaana ku waajibaa qof walba muslina haddii uu awoodo inay saddexda masaajid uu xarka xidho oo uu soo booqdo. wuxuuna sheegay quraanku muhiimadda masaajidka Aqsa iyo barakadiisa inta aan la dhisin masaajidka Nabiga hijriyada guuyaala ka hor sanado ka hor. waxaa jira xadiisyo badan oo tibaaxaya muhiimadda iyo barakada masaajidka Aqsa. waxaana ka mid ah xadiiska odhanaya salaada lagu tukado masaajidka Aqsa waxay ka dhigan tahay 500 oo salaadood oo masaajidada kale ah marka laga reebo masaajidka xaramka iyo masaajidka Nabiga. sidoo kale xadiista kale waxaa ka mid xadiisku wariyay Abu Dar oo Nabi sallallahu alayhi wasallam la weydiiyay masaajidkeeba dhulka guudkiisa lagu hordhisay. Nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku jawaabay oo yiri masaajidka xaramka. haddana waxa lagu yiri keeba ku xidhay. haddana Nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri masaajidka Aqsa ayaa ku xidhay masaajidka labaad ee koonka guudkiisa laga dhisay. islaamkuna markaa uu ka dhigay masaajidka Aqsa masaajidka saddexaad ee ugu weyn ee Islaamka ee uu ku lamaaneeyay kuna daray Qudus labada magaalo ee islaamka ugu waaweyn waa Maka iyo Madiine ay Qudus ku lamaantay. ugu dambeyntii Qudus waxa ay ku dheehan tahay iimaanka muslimiinta. koonka Ilaahay meel walba ka joogaan. qaaradda Afrika ku noolaadaan, qaaradda Yurub, qaaradda Aasiya ku noolaadaan. muslimiinta waa ku waajib in cadawga Yurub ay ka dhaxaan waliba Yahuudda ay Yurub ay ka dhaxaan ay ka difaacaan. reer Falastiin yaana lagu daawanin dhulka barakeysan balse way nagu waajibtaynahay muslimiin meel walba hadaynu joogno in dhaqaalo ugu yaraan dhaqaale aan ku taageerno wax walba aan ku taageerno reer Falastiin. hadday dhulalkeena ay ku noolaan reer Falastiin nagu soo booqdaan inaan soo dhaweeyno walaaladeen nagu waajib in mar walba difaacno dhulka barakeysan aanay qulubti iyo qalbiga aanay ka saarin. qofkii awoodana waa inuu soo booqdo dhulka barakeysan. salaada kaliya lagu tukado masaajidka Aqsa waxay ka dhigantahay 500 oo salaadood adoo ku tukada masaajidada oo dhan. marka ajarkaas salaada lagu tukanayo intuu leeyahay wani kaarka intaas muuqaalkeenu ku eegayay. laakiin ugu dambeyntii intaan muuqaalka ka bixin waxaan ka codsanaynaa muuqaalka leed aad saartid oo meel dheer aad gaadhsiisid. walaal waxa la yiri gacmadu wada jir bay wax ku gooyaan. kaliya ta waxaan anigu awoodaa in muuqaalada aan soo duubo aan soo galiyo challenge laakiin ma awoodo in muuqaalada leed taan u badiyo. inuu baa leed too badin kara commentida fikradiina muhiimka aan ugu dhiirigelinaysaan share gareeya muuqaalada meel dheer gaadhsiiya. ta muuqaalka xiga isku waxaan iga tagay amaana Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.